السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسر دوادا من البعض إنك داون إنسان و جانلك جورة شو وعلى بعد كداوتان فاقد هذا يو فلان قينتا يارها. داوديال إن وين وضع داوننا يارها سيدا أي أسعدانيو إن سيدا يكله الريان. وحا عيارتا إن حالي إن سي لما فلانا هوغانكا بريمير ليج قادتي ليفربول oo ay hadda ku hogaaminayso 6 iyo 10 dhibic halka ay EVERTON ay ayaduna leedahay 3 iyo 10 dhibcood sida loo kala horeeyo ayaa daawadayaal waxa ay tahay Liverpool ayaa xalay ku hormartay ama hogaanka Premier League xanatay mar kii ugu horeysay sida uu seasonkan uu bilowday waxayna ku hogaaminaysaa 3 dhibcood oo halka ay leedahay 6 iyo 10 dhibcood waxa ku xigta EVERTON oo ayada laga laacay booskan ayada iska lahayd oo ayadana ku xigta oo leh 3 iyo 10 dhibcood waxa kale ku sii xiga Southampton ayadana leh 3 iyo 10 dhibcood EVERTON waxa uu dhiman oo aanu rajaynayna maanta inay dheeli doonto hal ciyaar oo ayada ah ciyaarteedii toddobaad ay tagayso halka ay Liverpool ay ciyaartay 7 ciyaarood EVERTON waxay la dheeli doontaa maanta Newcastle waan ognahay Newcastle-na ma aha koox aad u liidata waa laga yaabaa inay iska celiso EVERTON oo u ordaysa ama rabta inaysan ayna marna ka harin Liverpool ilaa aan rabin inay maartay dib u warto ilaa ay ka qaadato koobka ama booskan ay ku dhagnaato halka kooxihii waaweynaa ay ku jiraan nambarada ugu dambe sida Chelsea waxay ku jirtaa nambarka 6aad Leicester ayaa ku xigto nambarka 7aad nambarka 6aad Chelsea waxay ku jirtaa nambarka 4aad nambarka 5aad Leicester waxay ku jirtaa nambarka 6aad oo Aston Villa oo aynu isleenahay way ciyaarteeda way bilaabatay Aston Villa iyo Southampton Aston Villa waxay ku jirtaa nambarka 7aad dawladda meel walba inaga daawanaysaan waxa ciyaarta si aad ah loo sugayo maanta waxa kamida oo dhexmari doonta Manchester United iyo Arsenal taas waxa lagu ciyaari doonaa Old Trafford arbitrana waa Mike Dean oo u dhashay dalka Ingiriiska saadaal badan ayaa laga bixin doonaa aniga lafteeda saadaal ayaan dhiiban doonaa run ama aan ku dhaco ama aan ku guuleysto waxaan dhiibana saadaashaas leeyahay waa ay ku dhamaan doontaa ciyaarta dhexmari doonta Arsenal iyo Manchester United haddaan isku dayo inaan dhiibto saadaasheeda ciyaarta waxay ku dhamaan doontaa 2-1 waxaana guuleysan doona Manchester United sax ama khalad waynu arki doonaa ciyaarta markay dhamaato daawadeel waxa kale oo maanta dheeli doona Tottenham Hotspur iyo Brighton and Hove Albion waayagana aynu isleenahay waa laba koox oo aad iyo aad u adag dawadayaal sida ay maartay Liverpool ay ku heshay inay leenka ama nambarka hore oo inay hogaamiso haatan Premier League miiska kala horeynta shalay waxay ku reesay sadirqiya Liverpool oo dogtahay oo ka maqan yahay difaaci ay ku dhaaranayeen laakiin waxaad moodaa in aanay wali waxba iska dhimin oo Liverpool tii hore ay tahay sida ay hore u sheegeenba inaysan maartay aan meel ugu jabnaan doonin ama aan ka muuqan doonin inuu ka maqan yahay difaacoogii halyeyga ahaa laakiin waa ay dadaalayaan Liverpool sida Mo Salah Mane Diego Jota لاعبين fara badan ayaa ayadana Firmino ku jiro ayaa aad iyo aad u dadaalayo oo maartay booskooda raba inay buuxsadaan waan maartay Liverpool ana laga qaadanin marna seasonka numberka ugu horeeyo ilaa ay ka qaado marka la fiiriyo EVERTON oo aad moodid in maartay EVERTON waxa ay ku jirtaa numberka 2aad oo
xalay uun laga dulbooday oo Liverpool ay u dhaxeyso 3 dhibcood oo kaliya halka ay goolashu waliba ay Everton ku badan tahay waxa laga yaabaa Everton hadda maanta ay guuleysato Everton waxa ay tagaysaa 3 dhibcood ay ku darsanayso way tagaysaa 16 dhibcood waliba waxaan is leeyahay numberka ugu hore ayaa dib u xanan doonta saacado badan ayaa ka hartay sidaan hore kuugu sheegay ciyaarta la wada sugayo aad maaragtay loo xiiso qaba waxay tahay labada kooxood Arsenal iyo Manchester United halka Manchester Arsenal waxay ku jirtaa numberka 12 waxayna leedahay 9 dhibcood halka 15 Manchester United ay ku jirto oo ay leedahay 7 dhibcood oo kaliya markan si fiirino line-upka ay Arsenal iyo Man U ama shaxda Arsenal iyo Manchester United waxaanu fiirin doonaa natiijada ay ku soo bixi doonto ciyaartan la wada sugayo sida kale ciyaaraha maanta ayaa waxa la dheeli doona 4 kooxood halka Aston Villa iyo Southampton ay bilaabatay Newcastle iyo Everton Manchester United iyo Arsenal iyo Tottenham Hotspur iyo Brighton Hove Albion intaas ayaanu ku soo gabagabeynaa waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo